dadka ku nool magaalada Vermont ee dalka Mareykanka ayaa ka yaabsaday dunida kadib markii ri ay u doorteen inay noqoto duqa ama maayarka magaaladaasi. dadka ku nool magaaladan ayaa isku raacay inay ri u doortaan inay matasho noqotona maayarka magaalada kadib markii doorasho ay ku tilmaameen mid cadaalad lagu qabtay magaaladaasi. ridan oo loogu magac daray Lincoln ayaa ka soo dhex baxday xayawaano kale oo la tartamay, waxaana dadkii ka qayb qaatay doorashadan ay gaarayeen 2500 sida warbaahinta wadankaasi Mareykanka ay soo tabinayso. xayawaanaadkii kamid ahaa musharaxiinta ee ay ka soo baxday ridan ayaa ka koobnaa 15 xayawaan oo ay kamid yihiin eeyaal iyo bisado sida warbaahinta dalka Mareykanka ay ku waramayso. dadka ku nool magaalada Vermont ayaa ku dhaqaaqay talaabadan iyagoo ku eedeeyay dawladda inay dayacday magaaladan sidii la rabayna aysan ugu adeegin shacabka magaalada ku nool. arrintaasna ay tahay sababta ku qasabtay in xayawaan ay u doortaan maayarka magaaladooda. qaar ka mid ah dadkii ka qayb galay doorashadan rida lagu dooranayay ayaa warbaahinta u sheegay in sidoo kale qorshuhu yahay in la qabto doorasho kale oo iyana lagu dooran doono madaxweyne xayawaana.